السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلن وعن ونكسن داوديال ملك soo joogtaan ku soo dhawaada qodobada warkeena ugu door karoon oo xilli tabinteena halkan idin ku soo gudbin doono wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dagaal ee wali ka aloosan gudaha dalka Ukraine shacab careysan oo calanka Israa'iil ku gubay caasimada Ankara wada hadallada foolka ee maanta la filayo inay ka dhacaan dalka Turkiga Ukraine oo ciidamadeeda nabad ilaalinta kala baxayso qaramada midoobay daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan halkan idin kula wadaagi doono shacabka Turkiga oo careysan ayaa waxa ay gubeen amaba ay jeexjeexeen calanka Israa'iil kadib markii halkaasi lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Israa'iil ninka loo yaqaano Isxaaq Herzog madaxweynaha ayaa waxa uu casuumaad ka helay madaxweynaha dalka Turkiga iyaga oo doonayay in calaaqaadka labada dal oo waayadii u dambeeyay si xumaa in uu halkaasi uu ka soo hagaago shacabka careysan ayaa waxa ay sameeyeen arin lama filaan ah taasi oo ah in markii la soo dhaweeyay madaxweynaha ay gubeen calanka Israa'iil isla markaasina ay wadooyinka magaalada caasimada ee Ankara ay ku daadiyeen ayna ku bedeleen calanka reer Falastiin Hamas ayaa waxa ay aad uga xanaaqday in madaxweynaha Israa'iil lagu soo dhaweeyay dalka Turkiga maadaama ay calaaqaad fiican iyagu ay la lahaayeen dalka Turkiga oo Turkigana uu ahaa dawladda kaliya ee markii Israa'iil ay weerar ku qaaday Hamas ka difaaci jirtay Hamas waxa ay ku eedeysay wadamada Carabta iyo waliba Turkiga oo hadda isaga laftiisa qayb ka qaadanaya inuu calaaqaad wanaagsan uu la sameesto Israa'iil 14 sano kadib madaxweynaha dalka Israa'iil ayaa waxa uu tagay dalka Turkiga halkaasi oo soo dhaweyn loogu sameeyay soo dhaweyntan waxa ka horeysay sanad ka hor uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta waana dawladii ugu horeysay oo Carbeed oo la sameysata xiriir tan iyo markii Israa'iil la cunaqabateeyay dawladda Israa'iil ay hadda waxa ay doonaysaa in ay bedesho madhabkeedii ku saabsanaa in ay dawladaha olagala ah ama Carbeed in ay la dagaasho waxa ayna doonaysaa in hadda ay abuurto saaxiibtinimo si ay u sii jirto wada hadallo fool ayaa maanta waxa ay ka dhacayaan dalka Turkiga kaasi oo ay martigelisay dawladda Turkiga kaasi oo dhaxmari doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka colaadu ka dhaxayso arrimaha dibadda Turkiga Milvid iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine Dmitry ayaa waxa ay maanta ay kulan ku dhaxmari doona dalka Turkiga waliba magaalada loo yaqaano Antalya Turkiga ayaa waxa uu doonayaa in halkaasi uu ku wada hadalsiyo wasiiradan si ay hordhac u noqdaan wada hadal la filayo inuu dhaxmaro madaxweynayaasha labadaasi dal ee colaada hadda ka dhaxayso taniya markii uu dilaacay amaba uu bilowday dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine waa markii ugu horeysay oo ay heer wasiira ay kulmaan inta hore waxa kulmay saraakiil inkasta oo wada hadalla 3 ilaa 4 jeer hore dhacay uu fashilmay wada hadalladan maanta dhaxmaray wasiirada arrimaha dibadda ayaa waxa la rajeynayaa in wax badan uu ka bedeli doono colaada si daba dheeraanaysa ee ka jirta dalka Ukraine iyada oo halkaasi laga cabsi qabo in colaadaasi waji kale hadda ay yeelato Kremlin-ga ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in Mareykanka uu qaaday dagaal dhaqaale oo ka dhan ah Moscow taasi oo ku sifeeyay cunaqabateynta dalkaasi la saaray duulaan ku qaaday Turkiga taasi oo ku saleeyay duulaankii uu ku qaaday waa Ruushka ee Turkiga dhaqaalaha Ruushka ayaa waajahayo xasaradii ugu darneyd tan iyo burburkii midowga Soviyeeti 1991 kadib markii reer galbeedka ay cunaqabateen ay ku curyaamiyeen ay saareen dhammaan hanaankii maaliyadeed ee Ruushka sabab la xiriira duulaanka dalka Ukraine uu ku soo qaaday afayeenka Kremlin-ga ayaa waxa uu sheegay cunaqabateynta reer galbeedka ay ku macneeyay cadowtinimo waali ah oo taasi oo qastay suuqyada caalamka
waxa uuna ka digay in tan ruushka ay cunaqabataynta hadda ay saareen aysan saameyn doonin ruushka oo kaliya balse ay faraha kasii baxday islamarkaasina ay saameyn xoog leh ee ku yeelatay caalamka. mar wax laga weydiiyey mamnuucidda uu madaxweynaha Joe Biden uu ku soo rogay dhoofinta shidaalka iyo weliba gaaska ruushka, waxa uu sheegay in ruushka uu weligiiba keligiis u ahaa uuna ahaan doono tamartiisana uu u heli doono meel uu suuq geeyo. dhanka kale dowladda UK ayaa waxa ay sheegtay inay awood u yeelan doonto in ay xirta amaba ay la wareegto diyaaradaha ruushka ee hawadeeda soo maraya iyo weliba kuwa hadda ku sugan eelaboorada dalka Ingiriiska ee UK. tallaabadan ayaa waxa ay qayb ka qaadan doontaa cunaqabateynada dheeraadka ah ee inta badan la saarayo ruushka, taasi oo ku sii kordhinayso in dhaqaalihiisa uu burburo. dalka Ukraine ayaa waxa uu doonayaa in ciidamadiisa nabad ilaalinta uu horay ugu diray inuu dib u soo ceshado. dowladda Ukraine ayaa dib u soo ceshan doonto ciidamadeeda iyo weliba agabka military oo ay ku jiraan diyaaradaha helikobtarada, kuwaasi oo qayb ka noqonayay howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Afrika iyo Yurub si ay u xoojiso difaaca gudaha ee dhanka duulaanka kaga imaaday ruushka. ciidamada ruushka ayaa gudaha u galay dalka Ukraine ku dhawaad 2 toddobaad ka hor, iyaga oo duqeymo iyo weliba go'doomin ka wada magaalooyinkeeda, waxaana ay ku khasbanaadeen in ay 2 milyan oo qof oo isugu jira caruur iyo haween inay iskaga barakacaan ama ay ka baxaan dalka Ukraine. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir ayaa waxa uu talaadadii saxiixay wareegto dib loogu soo yeerayo ama lagu dalbanayo in dhammaan ciidamada nabad ilaalinta ay si ay gacan uga geystaan dagaalka ka socda gudaha dalka Ukraine. Ukraine ayaa waxa ay ku biirisay ilaa 300 oo askari, saraakiil booliis iyo weliba shaqaale 6 howlgal oo qaramada midoobay ah, tiradaasi oo aan wax badan ka bedeli doonin howlgallada nabad ilaalinta ee caalamka. howlgalka ugu weyn ee ka qayb qaadanayeen ciidamada Ukraine ayaa ah kan ka socda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, kaasi oo ay leeyihiin unug ka kooban 250 ciidan oo weliba iskugu jira ciidamada cirka iyo weliba 8 diyaaradood, sida uu sheegay afhayeenka UNESCO. ciidamadani ayaa waxa ay Ukraine ay doonaysaa in dalkooda ay dib ugu soo celiso isla markaasina ay ka qayb qaataan dagaalka Moscow ay ku soo qaaday Ukraine. xabajoojin qaadatay 12 saacadood ee ruushka dhankiisa ka jirtay ayaa waxaa la rajeynayaa inay soo gabagaboobay doonto, isla markaasina ruushka u ogolaan doonto in mar kale uu howlgalladiisa uu dib u bilaabo. 12 saacadood ayaa waxa uu qabtay magaalooyin dhowr ah, kuwaasi oo uu doonayay in dadka shacabka ee ku sugan inay iskaga qaxaan si halkaasi duqeymaha ka dhacayo aysan u saameynin. inta badan duqeymaha ayaa waxa ay saameyn xoogan ay ku yeesheen dadka shacabka. duqeymo xoogan ayaa waxa ay ka socdaan magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada Kiev. hadda waxaa la rajeynayaa in dagaalka ka socda dalka ruushka uu waji kale u yeesho, maadaama reer galbeedka hadda ay dagaalka si dadban ay ugu soo biirayaan. daawadayaal, waxaa intaasi inooga dhan warwixii dal iyo dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. intaan warka mid xigo ku kulmayna dee beedmo nabad gelyo.